كن وقويس ما سهلنا وعاوة ميلا يستحضان هيسن قار جيدة كركودا يسارين قوية كركودا intaas oo qoys ama maxaan ku raahdaa cadadaas faraha badan ee dadkaas ku dhibaataysan meeshaasi waxay sugayaan waa annaga waxay sugayaan dawladooda waxay sugayaan culimadooda waxay sugayaan ganacsatooda waxay sugayaan shacabweynahooda Soomaaliyeed inay gargaar degdeg ah loo fidiyo maanta waxaan la kulmay aan u yeeray safiirka dhowr safiiraan u yeeray saddex safiir baadiga kulli ka soo jawaabay markiiba waxa uu waaweynaa safiirka maxaan ku raahdaa Turkiga iyo Qatar oo aad ogtihiin markii daadkaan u dhacay sanad iyo bar ka hor markii uu soo gurmaday daadkaas runtii kano kala ma ahayn laakiin ma sahlin isaga naftiisa mid aad iyo aad u dhib badan oo dadka dhibaato badan gaarsiiyo ahaa iyagana markiiba ka soo jawaabay dadka raashin iyo waxyaabaha u baahanayeen gaarsiiyay haddana waxaan rabaa inaad door fiican ka ciyaartaan oo marka ugu horeysa aad awoodaan aad deeq gaarsiisaan dadkaas muslimiinta waalihiina waana aqbaleen waxaan ka sugeynaa in dawladahooda la hadlaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ee dadkaas soo gaarsiiyaan wixii kaalmo ah ay gaarsiin karaan laakiin annaga la rabaa inaan isku tashano caalamku waligood waana taageerayaan inteena taageeri karaan laakiin kulli baan waxaan aamsanahay haddii qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed uu qayb ka noqdo idinkuna aad hogaamiyaal ka tihiin inaan dhaqaale badan aan gaarsiin karno dadkaas waaleena tabaalaysan haddaan u istaagno culimada hadda ka hor dhowr arrimood sano kala ah usiiweyn dhacay ka qayb galeen iyagana gaar loogu xisaaray wixii loo dhiibana sidii ay ahayd amaanadii iyo ummadii u gaarsiiyeen haddana anaga naftigeena gacan yaan ku siinayna ganacsatada saasoo kale ahaayeen iyaga naftigooda oo meel kasta ay joogaan runtii intay iskaashadaan hadday joogaan waxaan ku raahdaa loo yacdo ilaa raaskambooni inta u dhaxaysa wax alla wixii kaalmaha intay isu geeyaan yaan waxaan ku raahdaa la gaarsiin jiray dadka hadda saa sheegteen oo aan informationka iyo macluumaadkan ku hayno ama xogtaan ku hayno arrintu waa ka adag tahay sidii hore saas darteed inaan cid walba gaarsiino idaacadahan kala hadalno iyo si kasta oo aan dad ku gaarsiin karno masaajidyada in qof walba oo Soomaali ah qof walba oo muwaadin ah ama ha joogo gudaha ama dibaddaba inaan weydiisano kaalmo si dadkaas waalaheena aan u badbaadino insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo ilaahayna waana garab istaagi waxaan aamsanahay waqtigu waa muhiim haddii aynan gaarin labada bilood soo socota dhibku uu intaas ka sii badanayo Jalalaqsi waa laga yaabaa in biyaha soo gaaraan dhanka Gado waa la sheegay waxaan ku raahdaa Bakool iyada nafteeda waxaa ka dhacay musiibo marka haddee aad iyo aad waxaan ku mahadcelinayaa sida u istaagteen soo xilqaanteen hawshaana hawl annaga kaliya aan leenahay ma ahay waa hawl hoggaankeeda kaliya aan leenahay oo ummadda Soomaaliyeed ay nala leedahay meel kasta ha joogaan marka waxaan aamsanahay kulliga qaabkii iyo sidii hawsha loo qaban lahaa inaad u qaybsateen qof walba oo halkan fadhiyo door uu leeyahay haddii ganacsiga ay la hadlayso ganacsatada meel kasta ay joogaan iyo qaabkii loo aruurin lahaa dhaqaalaha culimada sidii dadku gaarsiin lahaayeen sidii dadkaas waalaha loo gargaari lahaa annaga naftigeena wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gargaarka iyo guddiga xukuumadda ka tirsan arrimaha gargaarka ah sidii aad u koordinate garan lahaydeen aan u xaqiijin lahayn dhaqaalahaas loogu talagalay ama wax alla wixii laga helo in la gaarsiiyo oo amaanadaas la ilaaliyo marka aan soo jeediyo xukuumaddu ha bilowdo iyadu inay mushaharkeeda wax ka goyso meeshan waxaa fadhiya rag xildhibaano ah in iyaga naftiga xildhibaanada loo tago oo iyaguna shir ay qabtaan birri ama birri dambe oo arrintaan ah iyaguna ay mushaharkooda ka gooyaan lacagtii ama dhaqaalihii u deeqi lahaayeen dadkaas waalahooda oo tabaalaysan idinkaa yaqaan percentagekiina iyo waxa loo baahan yahay waxaan aamsanahay
haddii aan samayno mechanism qaab dhaqaalahaas loo aruuriyo iyo si transparency ah dhaqaalahaas loo bixiyo waxaan aaminsanahay dad badan inay aaminayaan qaabka aan wax u wadno wax badan ay ku darsan karaan marka balaan dhageysto qorshihiina iyo sida wax u wadaan iyo sida ugu dhaqsiyaha badan oo loo gaari karo alxamdulillah dhinacan beledweyne anagoo kaashanayno guddiga waxaan international partners kan la fariisanay isla markii waxaan sameynay gurmad degdeg ah waxaan ku guuleysanay shalay alxamdulillah saddexda diyaaradood u wareey inaan u dirno beledweyne uu hogaaminaya wafdiga wasiir ku-xigeenka cabdirashiid waxaan kaloo ku WFP raashin ayay meesha la tageen Save the Children waxay gaarsiiyeen biyo UNICEF daawooyinka isla markiina plan B noo sameeysan waxaan aeroboorkan hadduu xirmo maxaa tala maanta waxaa dhaca xalay roob daay aeroboorka diyaarad kama degin karaan waxaan la xiriirnay UNSOS iyo OCHA oo partners leh maxaa tale waxay nagu deeqeen hal helicopter oo loo diray maanta beledweyne wax u daad gurayaan helicopter kalena way dalbadeen ma haysano mashquulin qaar wuxuu yiri hal helicopter ka waxa laga keenaa dhinaca Uganda dhinaca geedana assessment aan sameynay assessment ka soo socda waxaa la sheegay ilaa 5,000 oo qoys inay barakaceen marka xoogaa dhibaatooyin fara badan jira dhinaca waxano xagga logistica shalay alxamdulillah laba dhalinyaro oo ganacsate ayaa waxaan ugu deeqeen laba diyaaradood inaga bixiyeen aan meesha ku geeyeen soo jeedinta madaxweynahana annagu diyaaraan nahay daan ganacsatana inaan ka qayb qaadano dhaqan ahaanna awal baan dhaqan u lahaan jirnay inaan isku gurmano maanta waxaa maxaa fursad kale noo sii ah dawladna gacan siinaysa oo dadka noola gurmanaysa wax abaabulaysa inaan haysano iyadoon dawladii jirin baa ganacsatada iyo culimada diinku inta iskaashadaan gurmadyo waaweyn oo aan maxaa ahaade maantay aan la bixin karin ay bixin jireen marka waxaan isleenahay maanta haddii dawladdii oo abaabul iyo aqoonsi iyo xoog badan haysa ay idinku soo biirtay oo ay arrinta hogaaminayso ilaahay fadligiisa waxuunu ku suuroobi waada maahane iskaashi la-aan wax ku dhici maayaan annaga ganacsataan waa soo dhaweynaynaa guddi joogto u shaqeynayo isku jira oo ganacsato waaweyn iyo culamaa udiin iyo golo wasiirro iyo xubno warada bulshada ka socda oo toosna madaxweynuhu uu yani maaragtay taxta ishraafi ra'iis ku shaqeynayo toos oo isagu maaragtay in la dhaqaajiyo maalmahan soo socda taasna waxaan is leeyahay dadka dibadda jooga Soomaaliyeed iyo dadka gudaha jooga iyo ganacsatada runtii oo arrimahan gurmadka aad wax badan uga soo qabteen shirkadii waaweyn ee fadhiyaan hadda oo kaligood $100,000 bixi jira marka xaaladdan kale ay dhacdo waagii culimaduna ay runtii aad u maaragtay u dhaqaaji jireen sidii hormood iyo dahabshiil iyo kuwa kale iyo wada fadhiyaan marka in arrintaasna heer kasta mujtamac uga qayb qaato heer qaran laga dhigo oo gurmadkeeda weliba la yiraahdo maaragtay waxaa lagu bixinayaa xataa yani tanaafus ilaahay quraankiisa wuxuu leeyahay يعني فلا تنافس المتنافسون يعني خير كان قلت ترتمو وولبا أبا المرين يلقوا بحي مارت قفك ذكري ونعكسن قفك كلام في عنقاته لو ما موسى إلى هير قرن لو ما موسى ميدان كان لو وضعته وسائل بدن الله ذيك السدو